Hobyo waa degmo xeebeed qadiimi ah oo dhanka bari kaga beegan Gaalkacyo waxaana horumarkii ay gaari lahayd saameyn ku yeeshay dagaaladii sokeeye ee dalkan ka dhacay. Dadka ku nool Hobyo noloshoodu waxa ay ku tiirsan tahay kalluumaysiga. Degmadu waxa ay leedahay xeeb qadiimi ah oo aan qaban shaqadii lagaga fadhiyay dawlad la'aan aawadeed. Burburkii dawladnimo kadib 9kii bishii 2016 waxaa dhagax dhigay dekedda Hobyo ee gobolka Mudug madaxweynihii shaqada ka tagay ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed. Saacadan laga bilaabo dekedda Hobyo waa furan tahay inay shaqeysay u furan tahay. Waxaan dhammaan ganacsatada u dhalatay reer Galmudug iyo ganacsatada kale Soomaaliyeed intaba aan u soo jeedinayaa inay doomahooda iyo maraakiibtooda iyo shixnadahooda ganacsi ay dekedda Hobyo keeni karaan. dekedda Hobyo iyo magaalada Hobyoba maamulkooda labadooda maamulkoodaba insha Allah taala gacan iyo tashiilad wanaagsan ayay siin doonaan. Isku daygaasi ma guuleysan. Mar kale madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa dekedda Hobyo dhagax dhigay January 23keedii 2018 waxaana hadda soconaya dadaalo lagu horumarinayo dekeddaasi inkastoo aan ilaa iyo hadda wax horumar laga gaarin. Maalin taariikhi ah magaaladan Hobyona waa magaalo taariikhi ah. maanta inaan halkan imaano horta Allah mahad iska leh oo suurtageliyay inaan marxaati ka noqono maalintan taariikhiga ah inaan dhagax dhigno dekedda Hobyo. taas waxay muujinaysaa oo ay asaas u tahay inaan doonayno inaan hor u soconno marnaba qolada nabadiidka ah inaysan dib noo dhigin inaysan nacabsi gelin inaan ka shaqeyno annagoo ammaankeenna qorina gacanta ku haysanna dhagax dhigga iyo horumarkana gacanta kale ku haysanna. aan dib u eegno Hobyo goorma ay yeelatay deked waxa taariikhdeeda nooga waramaya Ambassador Cabdisalaan Xaaji Axmed Liibaan Dhabancad oo taariikhda Soomaaliya inteeda la hayo ahaa safiirkii ugu horeeyay ee Soomaaliya yeelato. dekeddan Hobyo waxay ahayd dekeddii ugu taariikh weyneyd dekedaha Soomaaliya. Talyaanigu intuusan soo gelin deked baa ka dhisnayd. Talyaani markuu soo galay Hobyo kaliya ka dhisay meel kale kama dhisin. xamar xataa macaamil bay iska ahayd. waxaasoo dhan waa burbureen. dariiqeediina waa la burburay. 96 sano ka hor ayaa Talyaanigu markuu joogay qolo la oran jiray Genio Militare waxay ka dhiseen dariiq isku xira Hobyo iyo Gaalkacyo. dhagax dhigga labaad ee dekedda Hobyo muxuu ka bedeli karaa dhaqaalaha gobolada dhexe ayaan weydiiyay Ismaaciil Maxamed Ismaaciil oo dhaqaalaha ka faallooda. waayo inay deked yeeshaan saddexdaas gobol waagi hore dhibaato badan ay u mari jireen in looga keeno waxay u baahan yihiin oo qalaba ama nolol maalmeedku waxay ku noolaan lahaayeen ama wixii iyaga u baahnaayeen waxa looga keenaya Boosaaso ama Muqdisho. dhaqaale ahaan horta wax badan bay bedelaysaa waxay tahay transportation-kii ku soo baxay Muqdisho ilaa iyo gobolada dhexe ama ilaa iyo Hiiraan ama Boosaaso ilaa iyo gobolada dhexe waxyaabo badan baa horta iyaga dhaqaale ahaan u baaqanaya. dhaqaalahaas baaqanaya iyo kobaca dhaqaalaha ee goboladaas ay wax u tiraysaa wax weyn ay ka bedelaysaa. markay wax ka bedeshana kullaytaba muhiimadda kalena waxay tahay in Hobyo deked ahaan loo dhiso bismaan wadooyinka soo gali lahaa ama ka bixi lahaana waa in la hagaajiyaa. wax soo saarka dekedda Hobyo iyo in wax laga dhoofiyo waxa fududeyn kara in la helo wadooyinka gobolada dhexe oo dhisan. ma jirto dawlad ku howlan dayactirka ama maamul toona isxilqaan dhisme oo lagu dayactirayo wadada xiriirisa Hobyo iyo Gaalkacyo ayaa waxa ku howlan qurba joogta gobolka Mudug iyo dadka deegaanka waxaana guddigaas xubin ka ah Ambassador Cabdisalaan Xaaji Axmed Dhabancad. dariiqa inta muddadaas waxba lagama qaban. marka dadka Soomaaliyeed oo Galmudug baa u kacay waxay dhaqaaqadu ku xun tahay waa 265 hadda markii la toosiyay oo meel dhaxal oo aan meeshii hore ahayn la maray waxay noqotay 260 kilomitir Hobyo iyo Gaalkacyo. marka waxaa jirtay 60 kilomitir ugu dambaysa inaan muddo dheer baabuur military oo kala kuwan lugaha badan oo xoog galo hoodo Soomaalidu TM-ka ay yiraahdaan ma ahane baabuur kale mar hore ka qoostay. marka hadda 60 kilomitir ayaa dhamaada oo lagu bilaabay oo hawli ka dhacday 2 sano oo hadda bil dhiman bil iyo 20 bari 20kii bisha saddexaad
2015 baa la bilaabay hadda magaalada Hobyo afkeeda la joogaa waxa uu haray waa wax bil ku siman haddii uu hirgalo dhismaha dekada Hobyo qorshuhu waxa uu yahay in dhaqaalaha gobolada dhexe ay wax badan ka bedesho su'aasha isweydiinta mudanse waxa ay tahay dhagax dhigga labaad ee madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ee dekada Hobyo ma noqon doonaa mid guuleysta Cali Aadan Muumin Goobjoog Muqdisho